nimankan khawaarijta ah ee dhibaatada badan iyo culayska dadka ku hayo waxaan leeyahay wiilasheeniyo horta ka soo noqda meesha aad aadeen wadadii saxdeedna maaha intii hadda caqliga iyo dareenlana way arkaan meeshaasi meeshii saxdeeda la aadi lahaa inaan ahayn ka soo laabta oo ummadiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dowladdiina u soo laabta baaq guud oo aan ka daali doonin inaan mar kasta dhahno waayo waxaan intaas ugu darayaa tallaab kasta oo maanta xaaladda jirta markaad aragteen kadib aad sii qaadaan dembiga iyo dulmiga unbay idinku sii badan inaad dadka Soomaaliyeed maanta sii dishaan oo sii laydaan oo xagga qarax ku qarxisaan oo xagga qarax kale ku qarxisaan waxba ma tarayso waxbana ma celinayso xaqinka iyo dhulka xaqinka dhamaado dhulkuna waa soo haraa war dadka Soomaaliyeed idinka un baa dhamaanaya dadka Soomaaliyeed way soo harayaan dadku way taagnaanayaan way jirayaan way joogayaan marka in maxaan ku raadayay aad sii fogaataan aad iyo dambiga iyo maxaa cuqubada Ilaahay hortiisa aad galeysaan aad sii kordhisaan xikmadi kuma jirtaan leenahay kuwa waa shay ee madaxu uu ka xumaaday yaana idisi madax mar mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladnimada ee meel kasta joogta iyo dadka wanaagsan ee hogaamiyaasha shacabka ah ee dadka la dagaalka dadka kula jira waxaan leeyahay nimankaas ilaa aan ku hubinayno yaan loo waxaynin mar walba waa sheega waa ku celiya arrinta qabiilka shabaab nugu qabiil ma ahan intuu fikirkii iyo taladii shabaabnimada xumbaarsan yahay niman yaa nugu qabiil ma aha warar badan ay soo gaarayo deegaanada qaarkood dadkii qabiil muxuu ahaa shabaabkii ka tirsana oo ama qoryaha qaaday dhalinyarada ah ama ush adeegaya shabaab ee xoolaha u aruurinaya ee dadka u aruurinaya ee dadka u wacyi gelinaya wixii xaaladda hadda bugal gaarna walba inuu inta yimiday oo yiri anigu hadda shabaab baan awal dadka ka xigay oo aan dadka ka ilaalinayay oo maxaan ku raadayay qabiilkan maslaxadiis ku maqnaa qabiilkiina uu yiri ha laga leexday annaga u dirnay waxyaabo la midayo war meel la isku dira meeshaas kuma oolo orod dadka Soomaaliyeed soo laay ama sidii loo laay lahay soo fududay qof loo diri kara ma jiro iyo qof loogu cudur daaraya ma jiro Allah ka keenan leeyahay qabaa'ilka iyo dadka iyo deegaanada dhahayo nimankan annaga shalay shabaab u dirnay war shabaab dadka Soomaaliyeed oo leeynay gumaaday meesha meel dad loo diro kuma oolin maxaa u dirtay dadka in wax ka soo laayad u dirtay Soomaaliya geel soo aruuri beerta badarka ka soo go'ay maxaan ku raadada qaar ka keen wiilasha keen intaasoo boqol kun ay ku qoran reer hebel maxaad u dirtay oo soo qabtay dadka wixii ay dadka shabaab ku sameeyaan warax ka si xun oo lagu sameyn karo miyaa dhinay haddii dadka ay dilayeen oo boqol iyo boqolaal ay u laayeen xoolahooda ay dhacayeen ay karaamadooda iyo sharaftooda bahdilayeen ay dulminayeen waxaad u dirtay ee dadka uu ka badbaadinay ninka reer hebel ah maxay ahayd kan u dabcaya ee qabaahay hadee reerkii baaba ku dhagan ninkaas ayala maya niman yaw nin shabaab laguma dhagi karo shabaabna midka qoraga sitay midka qaraxa sameynaya bas ma ahan shabaab kii qoraga sitay kii qaraxa dhigay isdilayay ma aha kaliya horeyna waa u sheegay waa ku celinina nin kasta oo camalkii shabaab ee dalka ka socda kamid ah shabaab waay sidiisaba kategorigiisu waa shabaab waa ka soo noqoyay waa ka yimiday waa ka tanasuliyay afkaartii dibka badneed soo ma aha aan isla ogaano inuu ka tanasul laakiin inuu ku dhex fadhiyo oo telefoonna 24 saac haysto oo shabaabkii la hadlayo oo xaggay ka soo dhaqaaqeen xagga laga soo duulay xagga la degan yahay iyo hadday seexdeen iyo waardi uma joogo meedebad iyo inta uu telefoonka la daba taagan yahay oo uu ku hadaaqayo ku hadlayo adiguna waa reer hebel aad tiraado oo maxaan ku raadaay aad waxayso cudur daar malaha ciidamada difaaca shacabka ciidamada qalabka sida siyaasiyiinta dawladda mustawaheeda kala duwan ama heer dawlad goboleed ama heer dawlad dhexe ninkii shabaab u adeegay soo dhaweysi malaha waxa bas in la soo wado meesha lagu xaqiijin lahaa
إنه ورت كان فكر قف نمديس ولا ما درسن دولته ولا ما درسن الشعب الصومالي أنت بقى قف كان صومالي جاه ويلكا أديركا أبتجا أما نبضونكا أما حضانات لما درسن قفانتيس وحي عدونا هيستي علكيسي هي أفكارتي للود لا إن كان مكتل وزر فرصة إلى بحيان واي لصو حقيقي أدر علي وكتل وزر وحي وشارك جريه ظروف تاسع جلس لك حتى أنا أقول ما كان أساس هل حقيقي أنت اسكسو أروسة بدها اسكسو قشنا أباسات مرض فرق كذا قشنا يساوجو مسؤولين تي مدحضة سياسيين تعيد مدى هو محاكو هذا لفسدود ننك وقبيل ورير هبل دنهود إلالين إليه مركي رير هبل للاين ينا دنهود مية أهيد رير عام للاين وندد لقى اللاين وكوا لقى دوليس المية جرة أو شبابكو أي محاكو هذا تبقى محوا عانا أي مير أسرين ومحوكا أي كعبي المية جرة توك يتوك الكال حولها دتك لقى صوب بابا نص لسيجري geelan isoo qumi intaas adiga ka wado arigan isoo qumi adigu intaas ka wado lacagtaan isoo aruuri intaas ka qaada la dhigi jiray ha macin bidin laakiin maanta kii fikirka xabaarsan ay kaan xabaarsaneen seed ku kala ogaanay inuu reer hebel yahay maad ku kala ogaa kartaa kuma kala ogaa kartid kuwa ku dilaya kulaynaya reer hebel kula ahaayeen kuwa ku qarxinaya reer hebel kula ahaayeen shabaab kuma dulaysanayeen reer hebelka aad tahay hadaan dhinac uga jirin مسار جيد مجوسي جيد كلا كوجوي قال هذا الإسلام وذا نمسه قالني تري محوها ميمون والشباب دجان كان الدل كان مقب صدين مت كل قراباه وقبيله وجفاء هذان هو الأردين أنا هو السعود ما كيش له هو السعودي يكي كلا إيمانته أنا أهل أرحن قرابة النقدان أيضا هلا قد جو قال له وكدينا تاس أب مرنا محوها وحلا أقبلها أما الأقبل الدور معها ماشي ما أنت لقى سود وين ولا قد بتجا ولا صوحينا أقولك كرامة بيرن هنكو إيدو من الصدق الدنبيرة في النقول إلهي هرتيس يومد هرتي ده بقى هكو إيدو من هنكو دنبنا كو قادم تاس مركان أنت سوق بحو دجانا ده دبعتوه يكدعان كتن شباب أنا ابن غفر متكلم لحظة هنا نبلا أقبل كرامة دقل الله أقبل كرامة ما لا وحكد عن ما لا يقار كود ولا الداوية قار هذا الله السعودان مسؤولين في مدح البلقورن أي والسعودان إلا الداوية و كاستاج من ضدك واحد أحمر لكن أنا واحد أحمران مرة كهرباء يعني دعين إنرجي يعتبر وقتي أنا جو إن نوجب بحال على جامع محوها إسديلنا إصنافة إن نوجب بحال وح صح معه عارف كهال كان ودمنتي إن أنا باق وجدي dadka reer Laascaano iyo dawladda Soomaaliland intaas aan sheegay bay ayaguna ay ku dhex jiraan war xilligeedii ma aha xilli la isdila ma aha 32 sano ka bacdi inaan isdilna sax ma aha waxa dhacay sida aan maalin dhaweeyta baydhabo wixii ka dhacay aan uga tacsiyeynay oo maalintii ka horeysay doorkaasi baadiyaas qabaa'ilka isku dira shabeellada dhexe aan uga tacsiyeynay يعني وقت تعزييننا وقنا حناي وحا كدعي بريهان دنبه مقالة لاسعانو دولة سومالان عنو باقية قارق حلقكم جرئي دادك قارق انت اللي قد دايو دادك داد لحظ لها لو صدرو دادك داد لحظ له وآي محو آي هذا الكودة دقيسان يا مليبا الله صدره على روحي كوب قاطي لقوم داوية ليرة هذه دت كذا يلبسدان إسرائيل يعيدا يدت هذا الله ذا قاركون هذا الله قرحون ما هنا هل إسكداي دت كاسي دبعت هذا هاي ستا يوحى أو مشاكل عيه وأنا دبيان وقدم قلينا ودت سومالية مالك السؤال سومالي كم نشاهد دبعت هذا قارتاي وقدم قلينا dadka reer Laascaano idinku lafsadiina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaadda iyo hadallada dhibka badan ee media iyo meelaha la marsiinayaa hal la joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daaweynayaan
mas-uuliyiinta iyo dadka hadda muxuu ahay dowladda somaliland waxaan leenahay sida bal si kale ha lagu dayo sidan si aan ahayn ha lagu dayo daaweyn mayso geel duday dhexdiisu xara lagama qabto yaa la yidhi dadku hadday kacaan si loola dhaqmaa jirte ciidan ma aha sida muxuu ahay loola dhaqmayo annaga haddii aan nahay dowladda soomaaliya dee soomaalinimo ayay noo dhibay arrintaas meel kasto daaf geeska ugu xageeyo somaliland hadday tahay iyo geeska kale soomaaliya hadday tahay iyo soomaalida xataa xuduudaha ka baxsan hadday dhibaatoonayso waa la xanuunsanaynaa waanana dhibay raallina kama ihin marmarka qaarkoodna qof calankii soomaaliya oo buluugga ahayo xidigta dhexda uga tiilasadaha u lulaya ee haddana dhibaateanu markaa aragnana waa si gaaran haddana usii xanuunsanayna oo gaar ahaan siyaasada noogama jirto wax kale noogama jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tale iyo hoggaan iyo maxaanku raha deganaansho iyo amni inay helaan waayo waxa aan ka danaynayno waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badani si kale ay u fafasiraan sida marar horoo badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahna ka xishoomayno kana gabamayno arrinta hala dejiyo nabadaan ku baaqaynaa dowladnimo nabaday ka dambaysaa hala dejiyaan leenahay dadka reer laascaanana waxaan leenahay lafsadiinu dega oo hadal usoo istaaga oo gubidda iyo jibinta iyo maxaanku rahday daaya dhiiggana yaa dhiig meesha ku daato dhibaato unbaa ka imaanaysa wanaag iyo khayr ay ka imaamayo walaalahaasna intaasaan ugu baaqayna haddii aan la yidhaah dadka soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan waxa fiican ha u rajeeyaano muxuu ahaye colaadda iyo culaysyada iyo ciriiriga meeshaas ka jira dowladaha iyo dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiintuna intay ka gaabsan karaan ama ay dib isu celi karaan ay xalka soo hormari karaan iyo dadaalada iyo niyad samaanta ha soo hormariyaan inteena kale ballanteennu waxay tahay dagaalka weli waa socdaa maalin walba dhallinyaraa naga dhimanayso kuwaa naga dhaawacmayo oo isbitaallada noo jiifa oo yaal xaaladdaas annagoo ku jirnaahe ogaan la-aan yaanan shabaab ugu adeegin ogaan la-aan nimankaas khawaarijta ah ee nabaddiidka ah ogaan la-aan yaanan ugu adeegin dad badani ogaan ugumaba adeegayaane kuwaasa jiro ogaan la-aan ugu adeegayo oo wax kale iyo macnayaal kale iyo wax ku samaynayo qaraxyada maalin dhaweyto maxaas ka dhacay iyo dadka ku dhintay iyo agabka iyo maxaanku rahday deegaanka ku baaba'ay kuwa shabaab khawaarijta ana waxna ma gartaan waana niman jiran oo caqli iyo maskaxda si ay ka noqotay laana wax maslaxadoo ugu jira ma jiraan ay ka helayaan maanta waa dileen dadka waa dhamaatay dadka cara un bay kasii qaadeen ma ogi hadda wax oo warnimanka waana qarxinayaan waana dhaaf waana dilayaan naga daaya waqtiga la dhilaha lama joogo caraa laga sii qaaday iyo xumaan loo qabo iyo nacayb loo qabo iyo dagaalkooda in lagu sii dhiirado oo lagu sii adadkaado un bay u dhalay dembigana waa kusii siyaadinay maanta maalintii inta qarax dhaca la iska iloobo marka qarax dhaca kadib baaris meelihii laga soo agaasimay dhulkii laga soo agaasimay dadkii joogay oo soo hadlaya hadda oo dhahaya maalin dhaweyto anagu maanaan ogeyna baabuurka guriga ku qarsoonaayo markuu soo baxayaan aragnay baabuurka qarxay inuu baabuurkii soo sheegay hebel iyo hebel iyo hebel yaa ku jiray waxa oo ka shaqaynayo gurigaa deganaayo tuuladaa ku jiray geedka waa la sheegayaa maanta maalintii hore maaha shabaab waa siran yahay niman waaweyn oo beri hadday isu soo dhiibaan xataa lala xisaabtami doono yaa ka soo baxaya dadka laana ninkii si ula kacata dadka saas u laaynayo beri muxuu ahaay shabaab ma ka yimid haye iska soco ma gasho waxaan rabaa dhallinyaradeenna inay meesha ka soo noqdaan dadka sabar taag waaye wixii la dhihi jiray qaarkiis dadka shabaabka mugow jabay iska soo noqday laakiin weli shabaabkii ah oo taleefanada ka daba dirayo qabiilow ka fogaw iska ilaali awal waaba iska taqiino xaggaasaad ba uga gabanaysayo waa muxuu ahay aada u waxaysanaysa ood ka gaargaarsanaysaye hadda adoo gacalsanayo oo gacal uu ku yahay ayuu haddana uu ku laaynayo eberkaa dhigaya wuxuu kugu dilayaa inuu taleefon diro ku tilmaamo meesha aad ka liidato waktiga saacadaha aad liidato dhammaan inuu ku sheego
ciidamada qalabka sida meel kastoo joogaan awaamirtiis horaan u bixinay lama qari karo lamana aqbali karo lama qari karo lamana aqbali karo see yeelna hadda reer hebelaa ku dhegan wax la yidhaha ma jiraan reer hebel kuma dheganaa karaan nin shabaab ahaa shalay kuma dheganaa karaan marka walaalayaal fariintaas dadkeenu dhan ha qaateeno dadaalkaas waa socdaa alxamdulilah ilaaha mahadle meel fiicana la marayaa nimankaasina waqtigoodii waa dhammaaday kuwa qaarkood oo de nimanku niman xag jira oo naqaanoo fogaado waaye weli xaqiiqada waa ku qancilaayeen waayihii inay dhammaadeen weli waa ku qancilaayeen laakiin insha allah ilaahay uga qancaan waa sii daba tukubayna waa daba soconaynaa haddii alla yidhaah ka hari mayna kana caajisi mayna insha allah aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu